السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله ما أنت برنامج كينا نحن كجه اللي دونا هدي إلهي نجي له لبك المدود أكل الدون توكل تلصار شيء توكل يضبط تلصار شيء بل سيل بدن تلصار شيء أو كل الدون هبك يقابك أد إلهي وتلصار نيسو جد كينو أي بدنا أنا كل فهمين هدي بهدي أدوني سينا دوجا تلصار برنامج isku soo laabasho wacan haddaba sidaynu awal bashagnay inaynu ku kala duwi doono barnaamijkan labada kelmadood ee tawakkal iyo tawaakul kuna kala bayaamin doono guntoodana aynu kala cadeyn doono tawakkal haddii aan si duuduub ahaana horta u sheego waxa weeye inaad ilaahay tala saarato sababtiina aad la timaado tawaakul balse waa inaad ilaahay tala saarto wax sabab ahana aanad la iman tusaale imtixaan bad ku jirtaa haddii aad qaybto ilaahayna tala saarato waa tawakkal balse haddii aad kaliyaata meel iska fadhiisato ilaahayna tala saarato oo tiraahdo imtixaanku qolba waxa ka keenay laha wii qorayay waa khalad sabab lama dhiman kaas waxa la dhahaa tawakkul waxbana laguma helo haddii haddaba aan kala bayaamiyo tusaalaha ayaa wax lagu fahmaaye iminka dunidan ay joogna xanuunka aadka u saameeyay waa coronavirus ama covid-19 balse waxaa jira tallaabooyin lagaga hortago inuu kugu dhaco haddii aad tallaabooyinkaas samayso ilaahayna aad tala saarato waa tawakkal cala allah balse haddii aad tidhaahdo hadduu igu dhici lahaana ilaahay baa ii qoray haddii kalena ilaahay baan ii qorin oonu allah tala saartay hal tallaabo oo lagaga hortagana aanad samayn wuu kugu dhacay taasna waxaa la dhahaa tawaakul waana mid aan bannaanayn in la sameeyo ka wax lagu faa'iidaa ilaahayna uu inagu dhiirigeliyo waa tawakkal cala allah inaad sabab la timaado inaad afki xidhato af maaski inaad meelaha lagu badan yahay aad ka fogaato inaad dadka laba tallaabo jirsato tallaabooyinkaas haddii aad samayso ilaahayna aad tala saarato hubaal xanuunku siduu kugu dhacay adagtay kugumana dhacayo kaas ayaana la dhahaa at-tawakkal cala allah tusaale labaad haddii aan kuu soo qaado waa risiqa inaad meel iska fadhiisato kadibna aad tidhaahdo ilaahay baan tala saartay oo risiqayga iyo waxaan cuni lahaa way qorantay waa run way qorantay balse sabab la kaalay meel ha iska fadhiisan kaas waa tawaakul ayaa la dhahaa tawakkal cala allah waxa weeye inaad shaqaysato inaad dhididkaaga qobto inaad kasbato wixii kadibna aad ilaahay ku tala saarato kaas ayaa la dhahaa at-tawakkal cala allah haddii aad kaa samayso hubaal ilaahay wuu ku garab gelayaa risiq xalaala iyo risiq dayibaana uu kuu keenayaa oo meeshaada ayaad ku helaysaa waayo waad kasbatay waad shaqaysatay dhididkaaga ayaad qubtay si xalaal ah ayaad u shaqaysatay kadibna tawakkal cala allah ayaad samayso ilaahay baad arrinkaagu dhiibatay balse meel haddaad iska fadhiisato oo tidhaahdo ilaahu adaan risiq ku weydiisanayaa waa tawaakul siibaan kuu raaciye wax xaaraan ah tawakkal cala allah looguma sameeyo haddii aan idiin soo qaado tusaalaha saddexaad uguna dambeeya waa mid run ahaantii ardayda qaar badan ay ku dhaqmaan weliba ardayda kuwa imtixaanka ku jira ay aada u sii dareemayaan waana xaaladda imtixaan markii aad ku jirto run ahaantii inaad qaybto ayuu kaaga baahan yahay balse haddii aad meel fadhiisato tidhaahdana war kolba waxaan keeni lahaa ilaahay baa ii qoraya maxaa la degdegsanahay waa khalad kaas waxaa la dhahaa tawaakul balse inaad wax qaybto wax aad akhrido aad wax u akhrido aad wax u qaybto waxay kaa saacidaysaa inaad imtixaankaas baasto weliba haddii aad raaciso inaad ilaahay arrinkaagu dhiibato tala saarato haddii aad laakiin fadhi ku diris ka dhigto oo aad tidhaahdo aniga ilaahay baa waxaa keeni lahaa qoray ee ilaahun baan tala saartay waa khalad ile imtixaanku kuguma soo waxyoonayne waa inaad wax qaybtaa sidoo kalena aad wax akhridaa ilaahayna arrinkaaga aad u dhiibataa subxaana haddaba daawada adigaagani daawanaya waxay ila tahay inaad wax badan ka faa'iiday labadan kelmadood ayaan kuu kala saaray dadka badankooda waxay sameeyaan tawaakulka haddaba sidaan adiga kaaga dhiirigeliya inaad tawaakul samayso dadka kalena uga dhiirigeli markasta ka inaga ina anfacayaa waa tawakkal cala allah inaynu sameyno sababtiina keenno ilaahayna arrinkeenu u dhiibano kaas ayaa markasta ina anfacaya waxaan idinkaga tegayaa salaamta islaamka wassalaamu calaykum waraxmatullah